taswiirta madaxweynaha marka talada haya iyo tiisa waa tiisa hadiga hor sareysa ama hadan soo baxay insha Allah taala tayda wax ka sareysa the founder of the second republic of Somaliland insha Allah kulorbeynedkiisana ku qabtay halkan waa xarunta dhexe xisbiga cadaaladda ee Dareelka Wacyiga ku leeyahay gudaha Hargeysa Engineer Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbigaasi ay waxa uu ka hadlay sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay markii uu geeriyooday Alan Xariisti Janna Firdowsaha ka waraabiye marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal madaxweynihii hore ee Somaliland ahana siyaasi si weyn saameyn ugu leh saaxadda siyaasadda Soomaalida waxaanu ka sheekay waxqabadkii uu hirgeliyay sidoo kale taariikhdii facaweyna ee uu lahaa marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal أنا كمية هذا قدومي سيدان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ومعاد سبحانه وتعالى إلهي رحمتك الرئيسية إلهي قواني مدينة السعودية إلهي مسلم كنا قال ومعاد سبحانه وتعالى وحان تعالى إن تعصدي أن أدري لما تنقول ذا مرحوم محمد حاج إبراهيم عيال مدحوينين إلى أن حرسته إن سيوه رئيسيه ما دام عنده فيها إن شاء الله تعالى بريسو وحدي وأنكحهم أيضا حسكا كمغناده aan jeclayna ka muuqdo waxaan idin sheegayaa marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal inuu naxariistay iyo taariikhda Somaliland inay isku tiscayeen marka la qoriyo taariikhda Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim markii soo geliya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal soo yar oo soddonka markaa uu galay ayuu Ilaahay naxariistay ragii gobonimada doonka xisbiga SNL haliyeega ka muuqday baa wuxuu ahaa kiyo 12 jir ah inuu noqday ra'iisul wasaare u horeeyay ee Somaliland wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim ragii ku taliyay war dalkan aan isku darsamayno horta aynu 6 bilood ka joogno 6 bilood aan ka joogno dadku iska qalbi xabxaba ayaa dadka shacbiga wax ma garadka maatadii lagu soo kiciyay la yoonin wasaad shuruud بينما شروط الآن يكون تعديل واتر أوجين وحين هو دعي دولة سوماليا أو قبيل كل الصولة قريب صدي أي بالي نجيب برتيجو لو يصير بالنسي صدق حين إحنا كي أي اللي بدي يصير السوق 20 محمد حاج على كم بديه هالكاس أيوه يروى ماشي وحين هو بيالان ككع مركز دولة حسبي حسب وين إنسيليا إنس wuxuu wada waa kireys wasaaraha noqday wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim nin geesiyo fishan Maxamed wuxuu la mid ahaa Naasir Jamaal Cabdinaasir Nakruume iyo ragaas hiniyatay Jomo Kenyatta ragaas la aqla ilaa hadda waa ninkan soo saarnay state man ee geliya levelkaas siyaasiga Soomaaliya waa Maxamed Xaaji Ibraahim maanta uu inoo soo gurmaday 39 haddaanu inoo iman oo madaxweynimada la wareegay oo sharciga inoo sameeyay oo inoo sameeyay dastuurka lacagta wixii dawlad ahaan ku sameyn jiray haddaanu joogin maalintii Maxamed Xaaji Ibraahim ay amisom la keenay xamar haddaanu soo raysay wasaar madaxweynaha wala inoo keenay isaga ka dagaalamay dahabshiil wala baabilaha haddaanu Maxamed Xaaji Ibraahim joogin waxa weeye aabahe Somaliland Jamhuuriyadda labaad digool baa ilaa waa the president of the fifth republic baa ilaa republic shanaad inaga waxa weeye aabahe جمهورية سوماليلاند لبعض أي نقطة علي جناحي مكان باكستان وكله أي نوعي هاي وهذه مرات تسوير مدحوينه مركا ثلاثة هاي يتيس وين تيس هذه غير سريسة أنا هذا صوب إن شاء الله تعالى تيجي واحد سريسة the founder of the second republic of Somaliland إن شاء الله عليه هلود أي محمد حاج إبراهيم لا يقبلها ونوره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيصل محمد آدم فيصل في تي في Somali Cable Hargeysa.